$2,000 meel alaala meesha adduunka ka joogtid Afrika, Aasiya, Ameerika. السلام عليكم أصحاب ملك زكي جوتي ديو وصاحبكم جنان ناني فضلا ku subta YouTube channel ki subscribe and like okay on guriga maanta maxaan oo hayaa barnaamij aad u xiiso leh waa maamo aad u dhibaataysan oo saddexdeed caruur ku weysay daadka oo ka dhacay Qardho waa la socotiin intiina badan fadlan maxaan iga codsanayaa kii ku kaalmeyn doona duco kii ku kaalmeyn doona muruqiisa yaa waxaa laga geysay maamadaas aad bay u dhibaataysan tahay waa gabar aad u yar waay oo saddex caruur weysay ma garateen waxa ku kaalmeyn kartiin ku kaalmey asxaabta waa kaas oo ni sheegay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دور وناكسن halkani waa Qardho waxaan walaalayaal maanta soo booqday oo la jooga walaasheen Nasra Xasan Ibrahim oo ah gabadhaas aadka u da'da yar oo masiibadii ka dhacday magaalada Qardho ay ku weyday saddexdeedii caruurta waxaynu nahay ummad islaam waxaa ilaahay ina faray inaynu isu naxariisano isu damqano hoos isu fiirino waa dareemi kartaan xanuunka ay leedahay marka laga hadlayo ubad ilaahay ku siiyey oo haddana kaala noqday hal cunug ayaynaan awoodin in aynu ku qanacno oo qalbideen iyo qushu niyadeennu ay ku samaato marka saddex ilmaan adigoo weliba qof aad u dayan ay ku dhaafaan waa dareemi kartaan xanuunka leedahay Nasra waxay lahayd saddex caruura saddex gabdhood bay lahayd sida laynoo sheegay markii ay damacday in ay biyihii faraha badnaa ee guriga soo gelayay ay albaabkii damacday inay ka xirto ayay intay daaqadaha ka soo galeen saddexdeeda caruura iyadoo arkaysa la bixin qoftaas aadka u da'da yar oo aad u jeedaan weeye muuqaalkeedii nolosheedu siday u egyihiin waxaa laga yaabaa beri ka hor inay sidaan ka qurux badnayd laakiin maanta xaaladada siday tahay waad u jeedaan abaayo Nasro waxaan ku leeyahay waa ku soo booqday waa kula xanuunsanayaa waa dareemayaa meesha xaaladaadu marayso aabbaanahay ubad baan dhalay ilaahay waxaan kaaga baryayaa inuu samir iyo iimaankaa siiyo ilaahay waxaan kaaga rajaynayaa inuu bedel khayr qaba kugu bedelo waad yar tahay niyaddu yay kaa dhiman ha calool xumaan waa kula jirnaa waa kula joogaynaa waa kaa warhaynaynaa qof walba oo islaam ah oo halkaa naga daawaray waxaan ilaahay hortiisa idinku weydiinaynaa inaad walaasheen ubadkeed uma soo celin karno aad u ducaysaan in ilaahay niyaddu u qaboojiyo wax allaalayo waxaad heli kartaan aad u soo dirtaan telefoonkeedu waa 25 dumarkeena ka farxisaan ama waalidkeena walaalaheena xaasaskeena intaba ka farxiyaa anigana waxaan balan qaaday inaan karab taagnaado mar walba waalidkaaga ka farxisay inaa hadiyad ku siiyo mar walba xaaskaaga ka farxisay inaa hadiyad ku siiyo